ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha milatariga ah oo si gaara u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldambiyeedyada lagu helo, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah, intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas. hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha milatariga iyo garsoorka kala toona, kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay. galka baaristu waxa uu diiwaan geliyay ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin. aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. 7 bishii November ee aynu soo dhaafnay waxaa maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daesh. hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliiska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Xaaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo, kaasi oo la soo qabtay 30 August isagoo lagu tuhmay falal argagixisanimo ah. eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. maxamed xaaji eeno waa aabaha Axmed Gaawo. markii wiilkii la xiray aan raadinay ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa nagu soo laabo. 3 beri laga aamusay, maanta afraad loo tagay wiilkii ma xaalkiisa war wiilkii meesha ku dhintay anaga dugnay fiiray magarat annaga dugnay dhaheen anaga dugnay wiilka meesha ku dhintay anaga meesha ku dhintay anaga dugnay war ma noqonaaye wiilka dib baa ka dhashay baa dhalay hel baa leeyahay. xubno dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. sidaasi oo kale qoyska Axmed Gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyay. waana meel kale soo deeyay marka ninka uu soo gaarnay kaliya markii loo keenay wiil asiga bareelaata ay keenaysiiya meesha ka geesta ayaa waqti soo darsaas ayaa ku reeyay waqtiga baliyaha. wararka dhinaca amniga ah ee uu helay galka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubno ka tirsan ciidamada amnigu ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha September, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10kii habeenimo ah. kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata, naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. ehelada Axmed Gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud. taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay Axmed Gaawo. galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay Axmed Gaawo. waxa loo soo qabtay inuu argagixisada wala shaqeeyo kana mid yahay. ka bacdi maxaa dhacay? xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyay, wuu dhintay. see wax u dhaceen? dhimashada ilaahay waa ku shaqale waqti antaga banaanka marayana waa dhintaa, kuwa xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer joogana wuu dhintaa. taasu wax fiican kama taagna, ilaahay baa ku shaqale qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan. marka laakiin de arrintan gaarka maxaa ku dhacay isagoo u dhintay? wuxuu sababsaday maxay ahayd? wuxuu sababsaday ma jiraan oo la dhihi karo waxaa sababsaday ninka la soo qabtay baaristu ku jiray, baaristu dhamayay xabsiga ka dhexdhintay oo nafaas u dhintay. marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seebuu ugu dhintay mise waa la jirdilay? ayay meesha taxina lagu jirdilay, waxa ka jiraan wata ma jiraan. qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doonaa wuu dhici karaa, ma aha waqtiga iyo xanuunsana. kali aniga wax xanuuno hadda leysoo gudbiyo ma jirin, laakiin ninkaas oo dhimashadiisa ayaa laysoo sheegay markii aniga. marka waalidkii waan la hadalay.